mudanayaal qodobka ugu horeeya qodobka tobnaad waxaan la qabaa sanataradii senator Zainab ama intii iga horeysay faqradda afaraad qodobka tobnaad qofna lama adoonsan karo waxaan aniga jeclaan lahaa in la siiqeeyo maadaama uusan adoonsiga jirin in laga dhigo qofna laguma xadgudbi karo xoogna looguma shaqaysan karo lagumana ganacsan karo waa ognahay maanta magaalada waxa ka jira way jiraan dad runtii gabdho yaryar oo teenage ah guryo ku haya oo maalin dhoweed xitaa ay ka mid ahayd gabadh dib loo heli jiray oo reerkeeda ka maqneyd muddo badan ganacsigu wuu jiraa dastuurkana runtii wuu xadidi doonaa laakiin wax adoonsiya oo hadda jira ma jiraan marka waxaan jeclaan lahaa in la siiqeeyo oo la yiraahdo qofna laguma xadgudbi karo xoogna looguma shaqaysan karo lagamana ganacsan karo marka kaas waxaan uga gudbayaa in la siiqeeyo qodobka 11aad faqrad waxa jirta faqradda saddexaad faqraddan saddexaad waxay iyadana caawinaysaa qodobkii ay gabdhuhu aadka uga hadleen ay ka hadlaayeen kootada in loogu daro qodobkaas 11aad faqraddii saddexaad wuxuu leeyahay waa inaan loo arkin fal takoorid ah barnaamijyada dowladda sida xeerarka hab siyaasadeedka iyo hab maamul oo lagu taageerayo koox ama dad gaar ah oo runtii loogu geystay ama ka dib dhacsan horumar ahaan dib dhacsan barnaamijyo dowladda waxaa jirta ay ku horumarinaysa dadka qaar oo ay ka mid yihiin dadka baahiyaha gaarka qaba ama naafada waxaa ka mid noqon karo kale haweenka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxay ka yihiin runtii aad ay ugu yar yihiin marka barnaamijyada looma arki karo fal takoorid ah barnaamijyada ay dowladdu ku horumarinayso ama xeerarka hab siyaasadeed ama hab maamul ee la rabo in lagu horumariyo dad ama koox gaar ah iyadana waxay caawinaysaa doodii gabdhaha waxa kale caawinaysaa dadka baahiyaha gaarka qaba ama hadda inkastoo baahiyihii gaarka in laga bedelaa u maleynayo ama naafada waxaa kale oo soo jeedinayaa qodobkaas 11aad faqraddiisa afaraad in isagana meesha laga tiro maadaama laga soo raray faqrad kale isagana in meesha laga saaro qodobka 13aad qodobka 12aad isagana faqradda saddexaad ee la tiray waan ku raacsanahay guddiga waana soo jeedinayaa in meesha laga saaro qodobka 13aad oo isagana ka hadlaya xaqa nolosha faqradda ay ku soo kordhiyeen guddiga ee ah soo rididda ilmaha waa arin aan macnaha sax ahayn laakiin waxaan ka soo horjeedaa in laga saaro guddi lagu kalsoonaan karo ama waayo xaaladdaas markay taagan tahay guddi dhakhaatiir oo lagu kalsoon yahay waqti looma hayo waxaan jeclaan lahaa iyadana intaas laga saaro laakiin faqradda meesha way ku habboon tahay in loo daayo qodobka 14aad qodobka 14aad isaga dhan maadaama loo raray qodobka 10aad loo raray waa in isagana meesha laga saaro qodobka 15aad faqraddiisa shanaad isagana sidoo kaleeto qodobka 13aad loo raray isagana waa in sidoo looga tiray uga maqnaado qodobka 16aad ee ka hadlaya xorriyadda ka mid noqoshada
qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu ku biiro dad ama koox waxa soo jeediyey xildhibaankii iga horeeyey iyo senator Zainab way soo jeediyeen dadna aan ilama saxsana kooxna ilama saxsana waxay la tahay in siiqada la saxo dad waxay noqon karaan dad kale koox haddii la yiraahdana sharci maalin dhaweedna loo keeno sharciga magangelyadoonka iyo qaxootiga waxaa aad ugu soo noqday kooxduna waxay noqon kartaa saa ogtihiin waxaa jira kooxo siyaasadeed waxaa jira kooxo dad aan dhaqan ahaan Soomaaliya aan ka shaqayn karin marka in dad ama koox la yiraahdo sideedaba waa ila qaldan tahay in guddiga waxaan u soo jeedinayaa in si kale loo siiqeeyo oo dadna laga saaro kooxna aan lagu darin iyadana oo xagga siiqada laga saxo qodobka 17aad qof kasta waxa uu xor u yahay in uu ku dhaqmo diintiisa waa qalad diinta islaamka ayuu dastuurkani uu runtii qodobadii in cutubkii aan soo dhaafnay lagu qoray dadka loo qorayna waa dadka Soomaaliyeed diin aan diinta islaamka ahayn in qodob kale ama faqrad kale lagu ogolaado waxa diidaysa qodobkii hore ayuu nasaqayaa dadka qaar waxay soo jeediyeen in ajaanibtu uu qodobkan qaar qaas u yahay laakiin maadaama dastuur aan ka shaqeynayno dastuurku waxa iska leh dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed meeshaasna ma qaadanayo waa in laga saaraa qodobka 19aad faqradiisa labaad qodobka 19aad ee xorriyadda hooyga waxa waajib ah in faqradda labaad waxa waajib ah in amarka garsooraha laga hor akhriyo loogu akhriyo deganaha hooyga macnaha taas markii maxkamaddu warqad soo qorto waxa jirta warqadda waxay sheegaysaa in qofkaas uu yahay eedaysane guriga markay yimaadaan ay u sheegaan laakiin waa markay warqad haystaan iyadana waxaan soo jeedinayaa qodob faqradaas in aan la tirin oo la soo celiyo laakiin lagu daro siiqeyn ah marka uu baaruhu haysto sharci in intaas lagu soo daro intaas ay ila tawaasantiin